rubnaayana qodobka labaad aan ka hadlayna waxaa waaye afraad ama saameynta jireed ee soonka ama medical effect wax la yidhaahdo oo maxaa dhaca hortay marka soomka marka soomka badanaa waxaa dhaca isbedelka metabolism wax la yidhahdo metabolism waxaa la yidhahdaa qofka dheefshiidkiisa iyo isbedelka jirkiisa ka dhaca markuu sooman yahay faa'iidooyin caafimaad bay leedahay marka kow marka horta heerka sokorta dhiigga hoos ayuu dhacaa oo sida ognahay dhiiggu wuxuu ku shaqeeyaa waxaa ku jira sokor wax la yidhahdo ama glucose taas wax kale maaha jirka ayaa isticmaala markay badan tahayna waa la kaydiyaa markay yaraatana waa kaydkaa laga soo baxshaa marka glycogen baa la yidhahdaa glycogen waa kaydka marka la ogaanayo kaydka sokorta ama jirka carbohydrate kaydka baa laga dhigaa kaydkaas marka la isticmaalayo waa la soo kiciyaa marna waa la kiciyaa marka glycogenka uu dhammaado oo qofkii ka soo qaad saakay uu soomay saaka markuu soomay ka soo qaad qofkii uu soomay saaka markuu soomo marka hore wuxuu isticmaalayaa sokortii kabacdina hadduu sokortii waayo ama uu ka waayo dalkii glycogen buu soo kicinaya glycogen wax kale ma waa qofku inuu maarata kaydkiisa isticmaalo sokorta haddii kaydkii dhammaado qofka marka wuxuu aadayaa jirkiisa wuxuu aadayaa dufanku soo burburinaya wuxuu bilaabaa markaas inuu qofka jirkiisa dufanku ku yaalla xayrta iyo baruurta wax inuu burburiyo waa ama ketone bodies waxa la yidhahdo ugu dambeynna waxa la yidhahdaa autophagy ayaa bilaabanaya autophagy waxaa la yidhahdaa waa jirka inuu maarata asagu isku mashquulo oo waxaa laga wadaa inuu asagoo seelashii dhintay kuwada tabcaanka kuwaas oo dhan burburinaya maadaama uu waqti u helay burburinta marka ayadana saameyn caafimaad bay ku jidha waay marka processku uu maro wax kale maaha waxaa waaye kow fasting physiology involves qof markuu sooman yahay wuxuu maraa dhowr heer switching baa la yidhahdaa switching waxaa in horta uu damo ama horta shaq dhan wax lagu sameeyo qofkii dheefshiidkiisii iyo waa maxay waxyaalihiis o dhan hal mar baa la istaajinaya sababto waa maxay waxaa laga bilaabayaa marka qofku uu jirkiisu nuugayo sonkorta ilaa waxaa la geenayaa fat uu qofku isticmaalo fat ama baruurta inuu qofku isticmaalo sidoo kale qofka waxaa yaraanaya reduced insulin secretion waxaa yaraanaya qofka insulintiisii in lasoo saaro insulintuna wax kale ma samayso waxay samaysaa inay sokorta jirka ku jidha ama dhiigga ku jidha kaydiso increased insulin sensitivity sidoo kale inay insulinku kacdo oo yaraynaysaa sidoo kale waxay ku samaynaysaa inay bilowdo autophagy waxaa la yidhaha cellular repair inay seelashii ama unugyada jirka inay maarata kiciso oo sidoo kale waa maxay ay dayactirto qofku sidoo kale waxaa ku badanaya dheecaanada hormoonka la yidhahdo ama growth hormone waa qofku inuu maarata dheecaanka jirka uu kor u qaadmo koritaanka sidoo kale waa maxay inuu helo dheefshiidku inuu nasiino hesho caloosha iyo xidmaha waaweyn kuwa yaryar kuwaas oo dhan inay maarata helaan sidoo kale maarata jirka sonkortiisa inuu control noqoto ama waa maxay la controlo intaas oo dhan waa sheeg faa'iidada laga heliyo waaye uu soomku leeyahay marka faa'iidooyinka si guud waxa waaye yareynta cayilka oo kale qofka way ka yareyn karaa qofkii marka hore cayilkiisii maalalaa qofku markuu soom wax laga yaabo inuu cayilku ka dhaco hagaajinta insulin sensitivity qofkii marka hore sonkorow qabo kale ama sokortiisu ay darnayd oo kale inuu asna xal u helo yareynta bararka inflammationka ama wax la yidhahdo ama qofku inuu bararka wadnaha oo kale oo cudurrada wadnaha ku dhaca inuu maarata yidhahdo marka laga hadlayo dheefshiidka iyo rabadaanka asaga marka koowaad horta dheefshiidka waxaa la yidhahdaa waa wax ugu muhiimsan oo qofka bini'aadamka ummada dhan u isticmaalaya dheefshiidkaasi martaa dheefshiid la lama isticmaali karo marka waxay ka bilaabanaysaa afka ka bilaabanaysa horta dheefshiidku afkan wuxuu leeyahay marka caliyadaas marka ugu horreysa waa cunnada waa burburinaysaa markay cunnada burburiso kabacdi bay u gudbinaysaa qaybta kale marka asagana halkaas waxaa ku jira soomka marka la afurayo nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku inku afuraa fiican calaa rudabaat oo tamraat marka rudabaat waa timirta markay qoyan tahay tamraadkana waa timirta caadiga marka timirta in lagu afuro ayada marka faa'iidada ay halka u leedahay ayadana waxayna ka taabanno waxay ka samaysan tahay horta timirtu simple carbohydrate waxa la yidhahdo simple carbohydrate waxa la yidhahdaa carbohydrate midka ugu fudud oo la shiidi karo waay marka timirta shiiditaankeeda waxaa ku filanba afka dheecaanka ama caliyadaas qofku markuu ku hayo carabka hoostiisa waxaa ku yaalla xidido yar oo wax nuugi kara waa marka durbe enerjigii qofkii usoo laabanaya afkii intuu ka haysa afkaa waa laga bilaabayaa oo nuugitaanka markii afka uu qofkii saa timirta u qaado ba waxa dhacaya waa maxay inuu nuugo kabacdi waa maxay jirkii durbe waxa laga yaaba inuu durbe soo kabto waay intaan calo la gaarin bashiitaanka marka faa'iidada halkaas waxaa noo caddaynaysa nabiga alayhi salaatu wasalaam waxyaala lagu afriya markuu sheegayay inuu yiri timiraad waxa yar oo
timirta kale ayaa ugu fiican iyo biyaha iyadana wax kale maaha waa durba in maamaad la helo. Markaan ka hadlayna caloosha saamaynta jireed ama ay leedahay qofku markuu afurayo kale ayadana inuu uusan samayn xad dhaaf inuusan samayn baa la rabaa oo caloosha si caadiga ah 1.5 litir oo wax ah baa ku jiri kara ama maxay 1 ilaa litir baa caloosha qaadi karaa. Marka haddii culays la saaro caloosha qofku wuxuu raac darro iyo dibiro iyo qofku wuxuu qaadaya. Marka dadka qaar waxaa jira ayagoo maanta intay leeyihiin gaajada baabi'i inay xad dhaaf u dhargaan ama aad u dhargaan. Dharagtaas marka saamayn bay ku leedahay iyadana. Saamaynta ay ku leedahay wax kale maaha qofka dheefshiidkiisii iyo waxyaalo fara badan baa maxay tahay is carqaladeynaya. Heartburn buu qofku lahaan karaa heartburn waxa la yiraahdo oo qofkii laabjeex iyo qofkii inuu maarta cunadii kusoo laalaabato baa maxay tahay saamayn ku ah. Marka calooshii baa cadays waxay saaraysaa sidoo kale maxay tahay caloosh waxay soo deysaa acid ama waa maxay aashito ay ku burburinayso cunnada. Marka cunnada haddii wax space aadan siin dhicaankaas waa daahi karaa waqti buu ku qaadanayaa inuu dheefshiidkii waqti buu qaadanaya dheefshiidkii. Sidoo kale blood sugar spike waxa la yiraahdo oo ayagana qofkii maarta inuu dhiig ku kaco kale ama dhiig uu ku bato sokorta ay ku bato. Marka carbohydrate badan qofkii hadduu cuno waxay u baahan tahay shaqo badan oo dheefshiidku shaqo badan baa u yaala markaas. Marka wuxuu samaynayaa maxay jirkii ama dhiiggiisa oo kale waxaa lagu arkayaa carbohydrate aad fara badan ama glucose marka waa in wixii dheeri la kaydiyo wixii la isticmaali marka laga reebo. Qofka waxaa la isku arkay waxaa ka mid ah sidoo kale sleepiness waxa la yiraahdo sleepiness qofkii hurdo ama fatigu daal qofka arkay markuu dhergo kale waxa laga yaabaa hurdo iska qabato. Marka waxaa laga yaabaa inuu xoogaa dhirta iska badiyo balse hadduu xoogaa dhirta khafiifiyo waa ayadana حديث بس نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا ما أنو قوم بأنه آد معنا إلا أن قاتشونه وإذا أكلنا لا نشبع. marka haddii aan wax cunaynana aad iskama dhajino. Marka xadiiska asna inuu tilmaamaya in dharagtu badan ama saa'idka ay safiicneen waxyaalaha kale oo qofku isku arki karo hadduu iska badiyo cunnada wax ka mid ah shortness of breath wax kale ma ayadana waa qofkii inuu neefti ku dhigto oo neefti qofku uu neefsan waayo. Marka calooshu uu qofkii buuxiyo waxaa riixmanaya diaphragm waxa la yiraahdo. Diaphragm waxa waaye caloosha iyo sambabada shay kala baraa la yiraahdo. Marka haddii qofkii caloosha buuxiyo sambabadii baa cadaadis gaaraya cadaadiska gaari awgeed baa waxa dhacaya inuu maarta qofkii uu neefsan waayo cabur dareemo. Qofka marka inuu wax badan cuno ayana waa laga fiican yahay. Sidoo kale qofka miisaanka ayaa ku kordhaya ama cayilka. Sidoo kale maxay tahay insulin resistance waxa la yiraahdo ayadana qofka inuu maarta sokorti oo kale inay qalqal qof ku dhacdo ama qofka sokor ay ku dhacdo type 2 sokor la yiraahdo oo qaybta nooca labaad la yiraahdo. Sidoo kale cudurada wadnaha kale qofka ayaa khatar ugu jira markuu qofkaas dharagtaas daa'imo iyo cudurka kastoo ku dhacdo. Marka ayadana nabiga alayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay dheefshiidka iyo cunnada ama caloosha ayadana nabigu waa tilmaamay oo wuxuu yiri ma mala'a aadamiin wicaa sharan min badni qofku ama bini'aadamku ma buuxshaan shay ka daran caloosha ma buuxshaan oo haddii caloosha buuxshaan ayada ugu daran waa macnaha. Marka xadiisku sii socday wuxuu yiri bixasabi ibn aadam luqmaat waxaa ku filan qofka bini'aadamka dhowr afgelis baa ku filan oo yaquum subahu oo toosiya dhabarkiisa toosiya macnaha in yar uu ku shaqaysan karo ama ku ordi karo bis baa ku filan waxba inuu dharagtan saa'idka uma fiicna. xadiiska asagoo sii socda buu nabigu alayhi salaam asagoo tilmaamaya in dharagtu aysan xun tahay buu wuxuu sii tilmaamay saddex in loo qaybsho cunnada thuluthun lidaami qayb waxaa ka mid ah cunnada wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun litanafus. Marka waa maxay qayb neefsiga u reeb qaybna cunnadii qaybna sharaabkii wixii cabi lahayd. Marka hadda markaan caafimaad u sharaxaynana waa maxaa sheegnay diaphragmka qofku markuu dhargo in sambabada riixayo. Marka halkaas mucjiska quraanku u yahay oo xadiisku inuu maarta cadeynayo caafimaad ahaan inay dharagta saa'idka aysan u fiicneen. Nabiguna uu tilmaamay oo yiri qofku inuu dharagta saa'idka ayadana neefta ku xirta. Marka halkaas ayana daliil ku sugan. Haddaan ku sii soconno qaybta small intestine ama wax la yiraahdo xiidmaha